Deegaanada Puntland ayaa deegaan leh hibooyin gaar ah oo Rabbi uu ku manaystay kuwaasoo ugu horreyso geedka magaca dhulka uduga ay kula baxday waana geedka loo yaqaano geedka bayada waxaana geedkaasi intiisa badan uu ka beeray deegaanka Puntland gaar ahaan gobolka Bari iyo Karkar. Waxaa sidoo kale ka mid ah nimcooyinka Rabbi uu ku goladay Puntland geedka timirta oo in ka badan 200 oo sano gobolka Bari ka bixi jiray iyadoo timirta gobolada Puntland intooda badan ay ka baxdo iyo weliba gobolada Soomaaliya. Haddana gobolka Bari waa halka ugu badan ay timirtu ka baxdo oo waqti dheer lagu tilmaami jiray. Nimcooyinka Rabbi ku goladay ayaa kuwo wax soo saarkoodu ay aad u hooseeyaan taasoo ay sababtu tahay dadku aan haysan aqoon ay wax soo saarka nimcooyinka Rabbi ku goladay uga faa'iideystaan iyo agabyada kale oo ay u baahan yihiin inay dhulkooda wax soo saarkiisa kor ugu qaadaan. Muddooyinkii dambe waxaa jira iskaashi la iska kaashanayo dhinaca dowladda iyo hay'adaha ka shaqeeya wax soo saarka beeraha in kor loo qaadayo wax soo saarka beeraha Puntland taasoo ay sababtu tahay in cunno yarada laga baxo. Dhanka timirta oo geed nafaacigiisu dadku ay ka dugsan karaan cunno yarida iyo nafaqo yarida ayaa waxaa dhowr goobood ay hadda jeefa uga samaysay gobolka Bari iyo gobolka Nugaal kuwaasoo loogu talagalay marka geedka timirta laga soo gooyo in lagu hagaajiyo laguna kaydiyo si ay u noqoto mid waqti dheer suuqyada u taala maadaama ay tahay mid iyadu sanadkiiba hal mar soo goodo timirtu isla markaana aan suuqa ooli karin haddii sideeda lagu dhigo. Waxaana la sameeyay goobihii lagu hagaajin lahaa iyadoo lagu kaydinayo isla markaana lagu kartoomaynayo. Madaxa hay'adda jeefa ee Puntland Cabdiqani Siciid Yuusuf oo KTV u waramay ayaa ka waramay waxyaabaha ay qabtaan isagoo sheegay in ay xoogga saaraan si ay kor ugu qaadi lahaayeen aqoonta iyo wax soo saarka dadka beeralayda. Waxaana uu sheegay in gaar ahaan weliba ay xoogga sii saareen timirta maadaama uu tahay geed nafaacigiisu aad u sarreeyo taasoo ay sameeyeen goobo badan oo lagu kaydiyo laguna kartoomayo lagu dhaqo lagu hagaajiyo. Cabdiqani Siciid Yuusuf oo u waramaya KTV ayaa sidani ku bilaabay hadalkiisa. Bismillahirrahmanirrahiim. Hay'adda jeefa ahaan anagu waxaan qabanaa ka shaqeynaa beeraha waxaan ka shaqeynaa Soomaaliya Puntland iyo Hirshabelle waxaan xafiis ku leenahay Garowe Boosaaso iyo Jowhar. waxaan haynaa Garowe mashruuc waxaan ku haynaa Puntland mashruuc timirta aan ku taageerayno mashruuca magaciisa waxaa la yiraahdaa Food Security Sustainable in Fragile Situations mashruuc taageeraya sugnaanta cuntada. Waxaan xoogga saarnaa taageero siinaa beeralayda beerata timirta. Mashruuca ujeedooyinka ugu waaweyn waxay tahay in lagu horumariyo sugnaanta cuntada nafaqada iyo soo saarka dadka si loo dhiso adkaysashada dadkan xaaladaha u nugul dadyogan ama communitieskan Puntland ku nool iyadoo sidoo kale aan taageero siinayno dadkan barakacayaasha ee degan ADP-yada ku yaala Garowe iyo Boosaaso. wax soo saarka timirta kaliya maxaad awood u saarteen ilaa Puntland waxyaabo badan oo dhinaca beeraha ka soo baxay jiray. Ujeedooyinka loo saaray waxay ka mid tahay timirtu waxyaalaha ay qariga ku tahay gaarka u leedahay hibada Puntland. Sidaa darteed waxaan u aragnaa inay tahay geed wax badan ka tari karaya haddii isaga la hagaajiyo bulshadana lagu wacyigeliyo in ay u arkaan geedkani inuu yahay business waxa ay ka ganacsan karaan oo productionkiisa ama wax soo saarkiisa la siyaadiyo inuu wax badan ka tari karayo sugnaanta cuntada. Sidaa darteed waxay keentay mashruucan in maadaama aan nahay goboladan Puntland waliba gobolka Bari khaasatan uu yahay taariikh ahaan u leeyahay in timirtu ka bixi jirtay in ka badan 200 sano ka hor. geedkan timirta waxyaalaha muhiimka u yahay waxa uu ka kooban yahay noocyada kala gedisan jirku u baahan yahay sida vitaminiski fatiski mineralski iyo fiberki intaba. marka waxyaabaha u qabateen maxaa weeye timirta horumarinta. jeefa ahaan waxyaalaha aan qabano waxaa ka mid ah dadka waxaan ka taageernaa beeralayda inaan tababar siino sidii ay u beeran lahaayeen habka wanaagsan ee beerashada ah. sidoo kale waxaan taageero ka siinaa inaan ka taageerno xaggan sidii loo horumarin lahaa waraabka timirta maadaama dhulkeenu yahay dhul oomana oo biyo ku yar yihiin iyadoo aan isticmaalin hababka casriga ah ee biyaha tashiilaya
sidoo kale waxaan u saarnaa solariskan agabkan ku shaqeeya cadceedda loo yaqaano solariska afka qalaad lagu yiraahdo. sidoo kale waxaan ka taageernaa inaan u qaybino beeraleyda siliniski oo ah mid lasoo tijaabiyey qualitygiisana la ogyahay ee laba shaybaar soo martay si wax soo saar tayo leh loo wanaagsan markaa uga soo baxdo. waxyaabo kale oo timirta horumarkeeda loo sameeyay miyaa jira? sidaan wada ogsoonahay timirtu waqtiga ay shelf lifekeeda ama waqtiga ay jiri karayso ayaa aad u yar. sidaa darteed sidaad wada ogsoon tihiin marka ay kasoo go'do geedka ilaa intay soo gaarayso suuqa waxaa ku gadaamnaa caqabado badan. si aan u xalino caqabadahaas waxaan sameynay 3 meelood. waxaan ka sameynay date processing unit ama goobtii lagu process gareyn lahaa ee lagu hagaajin lahaa timirta. waxaan mid ka sameynay kamid ah Jibagalle iyo Garowe, mid kale waxaan ka sameynay Eldaahir, midna waxaan ka sameynay magaalada Daroor loo yaqaano. meelahaas marka waa meelaha marka geedka kasoo go'do lagu kaydin lahaa. waxaa lagu talagalay halkaas in lagu kaydiyo, lagu kala saaro, lagu dhaqo, kadibna lagu baakadeeyo, halkaa kadibna suuqa loogu soo daayo, laguna qalajiyo. marka waxay keenaysaa taas in badan in ay waari karayso, waqti dheerna suuqa laga heli karo. laakiin hadda sida aad ogsoon tihiin waqti yar bay suuqa taalaa, 2 bilood 3 bilood inta u dhaxaysa, sanadkana waa hal mar bay soo go'daa. laakiin haddii halkaas waxaan u aragnaa inay 3 meelood aan ku process garan doono ama warshadaha yararka ah inay wax badan ka bedeli doonaan beeraha iyo wax soo saarkooda, iyo timirtii in xilliyo badan la heli karayo, xataa qiimaheeda wax iska bedeli karayaan baan aaminsan. marka haddeer marka waxay isleeyihiin wax badan ayay isbedel samayn doontaa dadka beerada Puntland maadaama ay wax soo saarka ugu badan oo dhinaca beeraha kasoo go'ay timirtu tahay. yes, waxaan aaminsanahay in badan inay wax ka tari karaan aqoontooda haddii la siyaadiyo. annaguna waxaan siinay 2 sano u dambeysay tababaro, kuwa kalena way soo socdaan. waxaan rajaynaynaa marka haddii aqoontooda kor loo qaado in wax badan ay Puntland ka bedeli doonto wax soo saarkeeda timirtu, lagana arki doono sugnaanta cuntada iyo waliba dhanka nafaqada iyo meel kasta inay isbedel la taaban karo lagu arki doono insha Allah.